اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. شاركا وين الشيخ يقال لي وكعذر دارنا يا مرك كوبات يا خاف وعن كعب سنين نبوحين كريم مرك اللبات waxaan u malaynayaa dhalinyaradu inay odayadii u diideen meel ay fadhiistaan waayo waxaan arkayaa uun dad madax madow allah idinku anfaco kelmadda caawa odhan doonaa waa ahmiyatu tawxiid mudnaanta uu leeyahay tawxiidku waa shahaadateynki waa laa ilaaha ila allah محمد رسول الله أريجاسي ودين توردن وشعار الدين الحق دين تربطة شعار كذا ما استانتيد أبو حنا ذكرنا وسلوغن اسكو حلا هذا شعارات كان لتاجو اللي صار قابيه معنى بلارن haddii in islaam la soo lahaa eray ku kooba eraygaasi weeyaan erayga la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah ay diintani ku koobantay hatta arkaanul iimaanka markaynu eegno al-iimaanu billahi markaynu dhaahno waxa dambe oo dhan isaga loo idaafaynaya al-iimaanu billah inta dambe waa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil liqaa'ihi aw bil yawmil aakhir wa bil qadari khayri كلها وإضافات إلهي له إضافة إليه سبحانه وتعالى لكن أصلكم والرميت الله سبحانه وتعالى علماء دي هوري waxay oran jireen tawxiidka waxa la yiraahdaa العلم بالله والعمل لله إلهي aad garato oo aad aqoon u yeelato فاعلم أنه لا إله إلا الله الله aad garato سبحانه وتعالى iyo garashadaasi oo aad ku dhaqanto waxay sheegayso ilaahay dartii aad u samayso culimada badkood waxay oran jireen markay taariifinayaan tawxiidku waa laba oo waa tawxiid al-ma'rifa wal-ithbat iyo tawxiid al-qasd wal-talab waa tawxiidka macrifada ama garashada iyo sugitaanka alle subhanahu wa ta'ala iyo tawxiidka acmaasha wixii adiga ka tagayeen inaad xagga alle ula qasdido oo la tagto culimada badh waxa arki doontaan iyagoo yiraahdo tawxiidku waa thalathatu aqsam waa tawxiid ar-rububiyyah tawxiid al-uluhiyyah tawxiid al-asmaa wa sifaat waxa soo dhami waa taqsiimaat cilmiya waa in la soo dhaweeyo taqsiimaad loo sameeyay hadda tiraahdo waa mid iyo hadda tiraahdo waa laba iyo hadda tiraahdo waa saddex macnuhu hal un baad wada sheegaysaa وإلهي برشاديسة يوحي عمل كاسو فلا يؤد إلهي سبحانه وتعالى كلجي هو جهده أما كلجي أطلق بطه يعني والله بدأ قيبي وحويا وحي سجى كيمي أنا ترميسية وحي سكو شاقي قيبنا وحويا وحي أدق فعله كاتجية حاجة الله قبنا إن تكلجي ولا تمادي ضي صلاة ضي صوت ضي زكاة ضي وردتي وعكسوا القبنا يسوع oo xagga alle aad u sameynaysa inaad kaliya la qasdido wixii xaqiisa ka yimin inaad sidooda u rumayso macnaha ballaadhan ilaahay wuxuu u doortay erayga la ilaaha illa allah erayga macnihiisu waa ilaah xaq lagu caabudaa ilaahu waa macbuud waa cid la caabudo sanam ha noqdo wuxuu doona ha noqdo wax kasto la caabudaa waa ilaah إله حق لغو عابدا مجرى اللم وياني وكيرا يا إلهي قرآن كسوغو شرح ياليه أفرأيت من اتخذ إلهه هوى كور ربا إلهي إليه كإلهي سكردك تي هوديس وحاي نفتي سودانتو هوديس أما وحاي نفتي سودانتو كي إله كردك تي quraanka waxa ilaahay ku tilmaamay rususha waxa lagu soo diray dhamaantood inuu eraygaay wixii ilaahay rasuul soo diray oo dhan nusuusta xadiidka ay ku sheegto 310
wixii nabi la soo diray oo dhan oo 120,000 axaadiista qaarkood ku tilmaamto wuxuu dhami ereygan un bay wadeen was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni arrahmani alihatan yu'badun wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun wixii aan rasuul soo diray ama wixii dad hore weydii baa ilaahay leeyahay ma waxaanu yeelay cid kale oo la caabudo aan Allah ahayn ama wixii adiga rasuulka horreeyay waxaan u soo waxyoodo ku soo diray annahu la ilaha illa ana fa'budun hadaba ilaahay wuxuu u doortay ereyga la ilaha illa Allah lama oranin la rabba illa Allah la khaliqa illa Allah kuwaasiba waa sax soo maaha laakiin ilaahay wuxuu doortay cinwaanka diintani inuu noqdo maxay laa ilaaha ila allah oo waa maxay waa masalada inta badan bini aadamku muranka geliyo tawaa'iftan dambe yar ee soo baxday hadda mooyaane ilaahay iyo weynidiisa iyo kelinimadiisa iyo dunida inta badan muranka ma jiri jirin xataa ibliis oo aabbaha sharka ah quraanku wuxuu tilmaamayaa inuu rumaysan ilaahay inuu rabbi yahay ibliis laftiisa oo ilaahay waa ka ku tilmaamayaa inuu leeyahay fabi'izzatik ama khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin ilaahay inuu khaaliqiyo rumaysan qaala rabbi faanzirni inuu rabbi yahay buu rumaysan qaala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard idan rabbi nimadii iyo casiisnimada ilaahay uu rumaysan yahay haddana waa gaal waayo cibaadadii buu ku shariik yeelay ilaahay markaasi wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waxaan rasuul soo diray oo dhan waxaan ku soo diray ereyga ah laa ilaaha ila allah saa daraaddeed masalada ugu badan ee dunida muranku ka oli jiray waa tan wa ilaa caadin akhaahum huuda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره خير عاد وحن صادر إبا إلهي ليجي ولا الكود هودا وحن كيلو اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وحيو جوابه أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ورما وحد نولتني إن أنه قال لك كلجي عابدنا كلجي oo wixii kale cibaado ahaayo dhan aanu ka tagna masaasaad la timi bay leeyihiin intaasi waa intaynu wada garanaynay haddaba waxaynu leenahay tawxiidkaasi wuxuu ahmiyad iyo mudnaanta u yeeshay ee rasuul walba loogu soo diray ee dacwo kastoo ilaahay soo diraa iyada uga bilaabantay waa miftaaxa ama waa furaha qofka bini aadamka ah eraygaa qabso waa fure hadduu furmo waxa ka dambeeya ay fududyihin hadduu furmi waayana waxa ka dambeeya ay adagyihin maxaa rusushoo dhamme halkan uga bilaabeen may meelo kale ka bilaabaan dadku dhaqaal u baahnaa siyaasad buu u baahnaa mashaakil ijtimaaciyaa jiray mashaakilaadku way tiro badnaayeen bini aadamka haysta quraanka markaad akhrido ilaahay quraankiisa in badan wuxuu kaga warramayaa taariikhda bini aadamka weecadyada galee inxiraafaadka ah kuwa siyaasiyo quraanka ka warramaya kuwa dhaqaalo ka warramaya kuwa ijtimaaciyo ka warramaya kuwa akhlaaqiyadu ka warramaya waxa soo dhib ah oo la saxayay rasuul kastoo lagu talagalay inuu saxaa waxa la yidhi waxaad ka bilowdaa tawxiidka darsigaygu caawa meesha ugu weynaanu socdaa waa meesha tan marka ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay isagoo nebi nuux ka warramaya laqad arsalnaa nuuxan ilaa qawmi faqaala yaa qawmi icbudu allaha maa lakum min ilaahin gayru nebi nuux baanu soo diray baa ilaahay leeyahay tolkii loo soo diray waxaanu yidhi يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير إلهي عابدا كالي عدك لولا عابدا ملك دين
في سورة الأعراف أما صور كلا القرآن كما كان أخرجه رسول كيوه الرئي هل كاسو قبل الرسول ولمن أساس الشيء نبي الله هود بال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نبي الله الصالح بال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نبي الله الشعيب بال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره بل إلهي بوحلي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت رسول ولي بهالكاس قبل هذا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وأهل رسول شكيل وختمي السنة هالكاس قبل هذا حديث إمام أحمد يبي هقبه ورينيان ربيعة بن عباد من بني الدين صحابي قاس ودل يرى وأن ولي إسلام أيه وحيلي وحن صار راعي أبهي وحن نمبود السوق الله إلى ذي المجاز عرفت السوقية إلى هانتر تيسقط ما ضوح حقوق لقطته قبل يدا يفتهم مدى يا قبائل كسقف أنا سوق صار نمبود دبتنا وحن ركبولي ووقت الجاهلية بولي رسولك عليه الصلاة والسلام وهذا لا يضدك كله يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وارضوا لا إله إلا الله لها تفلحوا وقولي سنسا والليباني ساني وضدك كسا أروريو ودبتنا نمبا دبا السعودة بويدي قرح بدن وإنها أشقرك يرى الحولة والله ضفيرdo timaha laba meelood ka guntaday carabtu waa tibadheeriyin sidan dumarkeenu u guntadaan oo kale bay qaarkood u guntan jireen ضفيرتان laba dacal ka guntaday ayaa daba socda oo wuxuu leeyahay innahu sabi'un kadib waa beenaale diintiisa ka tagay waa bidcoole ha dhageysanina buu ka dabaleeyay buu yiri waa adeerkii nabi maxamed كورنا هدي أديرك أنت لو قد ضبط لقوا ماشي تستكتبه ويده هو بنتي كي يرانا واضح وحبك بيجرا وحشيني نبي محمد أديرك بعد ضبط صعده دبتنا ماشي ويستاجه والدين كشيء بقى أديرك بقى وحليه إنه صابئ كاذب و دين تسميت كتجي وبيدعوا لنا قضي وكاذبة بين على أباهي بان ويدي بولي صحابي غيره وحقولي أبا نينك دبا صعدا واقوبة وحيقولي وأديرك يا أبو لهب وأديرك يا أيا أكد دبا صعدا حديث الشيخ الألباني صحيح بكت المامية وحلنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام هل كاسو كبل هذا إسلام مركاسي عدي ودري الصحابة دي سياهد يوم لها كلا ودري وحكوا يد هلكا كبلابا هلكا مثلا حديث الصحيح بيا له معاذ بن جبل صحابي اللي ورن شريبا وحكم ده رجل يمن ودري النبي عليه الصلاة والسلام وحوش جاي ماشى وتجي يمن وكتجي معاذ بدك الدجانين يا أهل كتابهم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب ده أهل كتاب ده تجي سابوي فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وويد توحيدك لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كاوية هل كاكبلوا مكويد هديك أقبلان صلاة الشيخ هديك أقبلان يعني مركز النبي قوة المامي وحي كلاو قبلها وحين لنا مركز توحيدك وهلك الله قبل بالدين توحيدك بالشك اسطاء انحرافته او وعته او قلوع قاله قلوع ماشو دونها كقلو ارجعوا فيرسو قلوع ماشو دونها كقلو وهلك الله قبل هذا سؤال شيء سوى الدين تلا وحي تاهي dadkaas rusushu u timi ma isku wada problem bay haayeen waxa laga yaabaa inay dadku yiraahdaan waliba dhalinyarada waxoogaa ka dhigatay dadka kan mushkilad ijtimaaciya haysata mushkilad siyaasiya haysata mushkilad dhaqaalaha haysata wadaadaduna wuxuu bay leeyihiin
tawxiidka halla saxaya laa ilaaha illa allah iyo meelahaas ma ka waramaysaa war dadka dhibtooda wax ka xallila waxaan leenahay waa wax ma garato inkasta uu buugaag badan af ingiriisi akhriyay waa wax ma garato xaguu wax ma garakata ka yahay wuxuu ka moogan yahay taariikhda bini aadamka ee dunidu soo martay ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkan qur-aana wuxuu ku tilmaamayaa taariikh kooban concise kooban oo ku saabsan inxiraafaadka bulshooyinkii qalloocday quraanku bulshooyinka uu ka warramayo qaar baa siyaasad ahaan u qalloocday fircawn dee nin intuu dadka xaaqa haddana le maxay anaa ah rabbukum ulacla ka warran dictatorkaasi halku gaadhay intuu dad u khudbadeeyo ayuu wuxuu bulshaweynta ku leeyahay ana rabbukum ulacla bulshaweynta ka kaalay xaashiyada iyo malaa waxa la yidhahdaa qoladan dee dowladda ninka haysta la haysata wasiirada iyo baarlamaanada iyo kuwan ka agdhadhow ayuu la hadlay wuxuu yidhi yaa ayuha almala'u maa calimtu lakum min ilaahin hayri dadkii laysla soo dhaaf mala'u wuxuu ku leeyahay ilaahaan aniga ahayn idin garan maayo bulshadaas dad ka midaba wuxuu ku xukumay inaanay wiil dhalin waxay rag dhalaan in la laayo haddana rasuul baa loo soo diray tawxiidka saxaya qur-aanku wuxuu ka warramayaa kuwa sana macaabuday nabiyullaahi nuux baa loo soo diray tawxiid saxaya qur-aanku wuxuu ka warramayaa kuwa dhaqaalaha khiyaamo sameeyey oo tijaarada qalday oo waxa kan sameeyey oo awfu lkayla walmiisaana walaa tabkhasu nnaasa ashyaa'ahum kuwaasaa loo soo diray nebi shucayb laakiin wuxuu ka bilaabay ucbudu llaha maa lakum min ilaahin hayr markaan taariikhda qur-aanka aragno kuwaa la soo diray akhlaaqiyaadkoodu ay dhinteen nebi luut kuwii loo soo diray xaggee mashkiladdu ka jirtaa markaa aan eegna nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam nebi moxamed waxaa loo soo diray iyadoo dunidu laba dowladooda waaweyni ka jiraan carab dhulkeedii inta ugu fiican gacmaha gumaysiga uu ku jiro bilaad raafidayn webigan dajle iyo meeshan uu maro iyo furaad iyo ciraaq dhulka kan dee madaa'in waa baqdaad agteeda bershiyaa haysatay waa dhulkii barwaaqada ahaa ee carabi lahayd shaam waa dhul kaloo barwaaqo ah romaniskaa haystay koonfurta yaman iyo qaybta tan koonfureed iyana dhul barwaaqo ah bay lahaan jirtay iyagana labadaa dowladoodee waaweyn baa ku kala loolamayay oo marna xabashida oo dee dowlad masiixiyo ku xidhan dowladda weyne masiixigaabaa qabsanaysa abraha iyo gruubkiisii marna kuwa beershiyankaa qabsanayay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu soo baxay dee baadaan iyo kuwaasaa joogay beershiyaa markaa haysatay idan carab dhulkeedii fiicnaa wax haystay tacbiirka cusub haddaynu isticmaalno dad gumaysiya waxaa kaloo jiray cadaalad xumo khaliij alcarab ama jaziira alcarabiya waxay ahayd meel nin waliba warankiisa wax u dhacsado daciifaan waxba lahayn dumar waxba lahayn cid waliba dagaalku joogta yahay waxay ahayd meel noloshu cidhiidhitay lama odhanin ka bilow qadiyadda cadaaladda ee cadaalad ijtimaaciya baan u jeedaa lama odhanin ka bilow maxay qadaayaadka qoominimada iyo dadkan in la xoreeyo lama odhanin ilaahay waxaasoo problemoo jira buu wuxuu yidhi waxaad ka bilowdaa qadiyat tawxiid waxay leenahay marka ilaahay qur-aanka markuu nicmooyinku ina siiyey sheeganayo ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmooyin aada u tiro badan buu ina siiyey weedha ay qolada gaaleed nin saynsyahanay leeyaan in badan tilmaama wuxuu ka warramayaa blue planetka waxay ku tilmaamaan dhulka marka kowka intiisa kale aynu naqaano loo eego inta aynu naqaano marka la eego waa meesha qura ee nololi ka suurtagaltay bal ee nolol bini aadam u cuntanta ay ka suurtagaltay dabeetana nin astrofisigiisoo qoraya nicmada dhulkan taallaya sida bini aadamka loogu habeeyey ayaa wuxuu yidhi waxaad moodaa buu yidhi dhulku inuu yahay tailor made for man dharka haddaad dukaanka ka soo iibsato
waxa laga yaabaa gacanta intuu kaa leegyahay inuu sida karaasito kale luqunta kaagaba yaraado waxa suurtagal ah inuu dhexda kaa leegyo xagga hoose kaaga dheeraado laakiin marka aad tolotee dawaar walow tagto dee meel kastoo adiga ka mid ah la fuurinaya dabeetana marajam kugu abaa lagu tolaya wuxuu leeyahay dhulku iyo sida uu samaysan yahay kownkan oo dhami waa tailor made for man buu leeyahay waxaad moodaa in bini aadamka loo tolay taa macnaheedu waxa weeyaan bay leeyihin kownka aynu naqaano isbeddel yaroo kastoo ku dhaca xidigaha ka dhaco atmosfeerka ha ka dhaco dhulka ha ka dhaco isbeddel kasta oo ku dhaca wuxuu khatar ku yahay nolosha bini aadamka bay leeyihin sidan ay tahay hadda ayay ugu qurux badantay inay ahaato ilaahay baa subxaana wa tacaala qur-aanka suurad buu kaga warramayaa culamada badhay u bixiyeen suuratu nicam waa suuratu naxal suuradda la yidhaahdo suuradda ilaahay wuxuu isdaba taxayaa waxa nimco layna siiyey bini aadamka inuu ilaahay abuuray nudfa mahiina in laga abuuray dabeetana walancaama khalaqaha lakum baa laga sii bilaabaya nicmoolayda fardoolayda dhulka waxa laynoo sameeyey markaasa haddana ilaahay wuxuu ka warramayaa cirkan iyo dhulkan iyo nujuumtan iyo xidigahan iyo kawaakibtan wasakharnaa baa ilaahay tilmaamaya saa laynoogu taskhiiriyey inta ilaahay wada buu marka dambe waxaa la odhanayaa waxaa ilaahay wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha baa ilaahay tilmaamaya ilaahay nimcooyinkiisa haddaad tirisaan maba koobi karaysaan baa ilaahay tilmaamaya ilaahay waxaasoo nimcaha markuu sheeganayo nicmada ugu hor sheeganayo suuradda waa maxay waa nicmatu tawxiid waxaasoo nimcaha markii la tirinayay aayadda koowaad ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa taamrullahi marka lasoo tilmaamo yunazilu lmalaa'ikata biruuxi min amrihi calaa man yashaau min cibaadih an andiruu annahu laa ilaaha ilaa ana fattaquun baa ilaahay leey an andiruu annahu laa ilaaha ilaa ana fattaquun ilaahay wuxuu ka bilaabayaa nicmada in ilaahay malaa'ig soo dejiyey waxyi uu soo dhiibay ilaahay amarkii ay ku soo degeen rususha ay u yimaadeen maxay wadaan an andiruu annahu laa ilaaha ilaa ana fattaquun kalimatu tawxiid waxay culammadu yidhahdaan markaa waa akbar nicma deeq alla bixiye waa ta weyn bay yidhaahdeen deeqdii ugu weynayd ee ilaahay subxaana wa tacaala bini aadamka siiyey saa daraaddeed buu sufyaan ibnu cuyayna وأحد حفاظ الحديث نكمده أما هو شيخ الإمام الشافعي إمام الشافعي علماء سنين كمده أيها حليه ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله نعمة كوين إلهي أدور مصين إن أو بري نعمة لا إله إلا الله إلا بري فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها إذن أيها الأحبة كلمة التوحيد وشهادة الحق أما الدعوة الحق والبراءة من الشرك قال لماذا لك فقاده إلهي وحط المامين أيتي أرى قاد رادد بوحى خلقك الله أبوري ابن رسوش الله صادري كتبت الله سودتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وحلاني مسألة تاني وحق هدو الصقمه حقوق ذكرنا ما يسقمس ما لهم مركز يجونا سيبا عصر قدام به هيومانيسم كواحد لا ينادى وصوت ربطي وحمقشان يدو ضدك يكور رميان حقوق الضمركه xuquuqda caruurta xuquuqda hooyooyinka xuquuqda xoolaha xuquuqda environmentka soo waxaasoo xaqa ma maqashaan iyo hay-ada ka warramaya ka ma maqashay weli cid ka warramaysa xaqa ilaahay xaqa ilaahay waxaa ka warrama ambiyada iyo rususha waa wixii loo soo diray inay ka warramaan xuquuqdan kale bini aadamku uu ka warrama waxay ku dhisantahay cala almughaalaba in la kala xoog bato مثلا حقوق الضمرك waxaan oran karaa hadda xaqa dumarka ee European uu ka batay xaqa ninka imka hadii nin iyo gabadh shaqo wada dalbadaan oo qualificationska isku mid noqdaan gabadhnimada xaq badan iyada inay gabadh tahay bay kaaga weynaysaa xuquuqda rag iyo dumarku مثلا
كل بقولة دي حق بدأت قولة كلام هذا يدمر كحق بتانا ينا كما كعان مركوده ولا جدال إذا هو مغالبة وهردم نورالات بكل سنتين حقوقها كرودة موانوعة إلهي حقي سهدو سجمه حقوق ذا كرودة أوتوماتيك بيوسجلتها قفك إلهي حقي سقرة وحقرتها كدم بيا حقوق ذا الدنبو أردن إلهي باقرية إلهي باكو شيغيا environment وحقك كقولي حوله حقي كقولي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بإلهي لي ورنك فسادين ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس هذي النكلير تهيا هذي تصحير تهيا واحد دون طبعا النقطة وبما كسبت أيدي الناس هذي حق دمر لقى ورمية إلهي بك ورمية هذي حق عرهورات لقى ورمية إلهي بك ورمية سورة اللقمان هذه إذا حقوق ذكرنا من وحي سجمتها مرك حق كوات سجمه ولذلك بقى أنبياء وحي هو الرئيسيسا حق كوات معاذ بن جبل أيوه نبي محمد عليه الصلاة والسلام معاذ إن اللي يرابها سيدي سبب معاذ إنك استوى صحابة الرجو علم بدن وكمدها بل حديث قاركود يكون الماميا فقيه إني أعلم المسلمين بالحلال والحرام هذا نوح كل انت دوري سود جربا نبي قداشين تصيرنا ولا دوري سود جربا كل انت والرجل يقول دوري تمن جردا اسلامي مكملها لنا قوم في علب وهدينه سقون من دلنيرا اي النبي محمد صلى الله عليه والضمير صار النبي عليه الصلاه والسلام الضمير فوشن ضمير يرى عفير لا يراهدو سنه حاجه دمك صفوله دبتنا نبي يوم معاذ الضمير كودا صار ابو النبي وحو يري والمعاذو يا معاذ بويلي معاذو تبتنا السحابي وحول لبيك وسعديك يا رسول الله كأجيبه وكأقبله إلهي رسول كيسيو أحب النبي يقول مشيقين ويسكى الصعدين صاعد مركي السعودين بوحدنا يلي يا معاذ سيدي سلم الصحابي وكوشوها النبي يقول أحبه مشيقين والله اسكى الصعدين صاعد هذا مركي للسعودين والنبي يقول إياه علماء ضويل هذا من علماء التربية وطريقة قفك لو تنبيهيه سي ودلغا u noqdo wartalow nabigu waxa uu sheegaya waa maxay soo yiraahdo si ay arintu u dareemay inay tahay wuxuu nabigu sheegi doonaa wax weyn oo loo baahan yahay inuu markasta xasuusnaado nabigu muxuu ku yiri atadri ma haqqullahi ala al-ibad mu'aadha ma taqaana ilaahi xaq wa adoomihiisa ku leeyahay xuquuqda alle ma taqaana buu weydiinaya nabigu mu'aadha ilaahi xaqiisa ma taqaana saxaabadu inta badan waxay garanayaan iyo waxaanay garanaynba waxay rabi jireen nabigu cilmi inuu kordhiyo dabeetana waxay ku jawaabi jireen Allahu a'lam wa rasuul ilaahi rasuulkiisa og nabigu alayhi salatu wasalaam markaas wuxuu ku yiri haqqullahi 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a ilaahi xaqu adoomaha ku leeyahay waa inay kaligii caabudaan oo aanay maxay cidna ugu shiriik yeelin هذا بقى أيها الأحبة وحين لنا كلمة التوحيد كما أري أفكار غير هذا قرها وحويا وأري نلشى الدنيا هي نلشى آخرة بكو حرمت هذا يسد بالله ووحى أي شيء يسود دين تيسلوغ الكوت تيلغو رقمه نلشى الدنيا ولا قولي سنة هذا يسد بالله يرى هذانا نلشى آخرنا ولا قولي سنة inta badan dadku u yaqaanaa nolosha aakhiro in la guuleysanayo quraanka nadda waxa ku taala jannada ma in laga xaraam yeelay maxay hadii ilaahay u shariig yeeshay inay xaraan ka tahay inay janno galaan hal xadiis baynu taakhiro oo dhanka tilmaamayna oo nimba la keenaya abu nabiga alayhi salaatu wasalaam دبتنا سجال سجاشن سجل وفايلز سجال سجاشن ديوان ومد ولي بمد البصري انت إلى كاركت يكل تشيدن أيلا صور دقيا ودروب وقلايا كان مكش وحبوا وقرنيا مركز ميساك الله صاري وحل وحصروا كام غنيات كرنيسا يلا الرسول كسي يوم ما يقولي حديثك صحيح وشاقي بطاقة كارد بالكينية أي كقرنت لا إله إلا الله محمد رسول الله كالتوحيد لا إله إلا الله يا اللي كينيا
kaadhkaasaa la saaraya dabeetana kaadhkaasaa ka xoog badanaya sijillaadkii oo dhan buu nebigu tilmaamay tawxiidkii ninka kan tawxiidku aakhira waa nooca laakiin midna ogsoonow tawxiidadu isku mid maaha sida loo dhawaaqo iyo sida loogu rumaysan yahay iyo sida loogu dhaqmo isku meel kama joogno waayo axaadiistu waxay tilmaamaysaa dad tawxiidkoodu naarba inuu galo uu ka joojiyey oo kow janno horta ka gelaya waxaa kaloo axaadiistu tilmaamaysaa qad tawxiidkoodu khafiifuu ku jiro oo dunuubtooda kale intay badatay uu la kici kari waayey dabeetana naarta intay galaan lagu soo nadiifinayo aakhirka marka dambe janno soo gelaya marka waxaan leenahay tawxiidku hadduu si dhaba u jiro marka koowaad buu naarta kaa mamnuucaya haddii khalal ku yara jirana fudayd hadduu ku jirana naarta inaad ku waartaabuu kaa mamnuucaya idan markaa waxaan leenahay haddaad tawxiid ku dhimato waxa la hubaa inaad janno gelayso ama xagga hore ka gal ama xagga dambe ka gal haddaad tawxiid ku dhimatana waxa la hubaa inaad naar ka baxayso ama marka horeba ha gelin ama marka dambe ha lagaa soo saaray aakhiro tawxiidku qiimaha intaa leeg buu ku leeyahay adduunkana waxaan leenahay qiimuu ku leeyahay qiimayawa kaloo dhan caawa ka hadli maaya hal midaan tilmaamayaa qura waxaan tilmaamayaa isbeddelka nololeed waayo innagu waxaynu nahay ummad dhibi haysato wadankeenna aynu deganay ama caalamulislaami oo dhan caalamulislaami maanta bini aadamka xagga dambu kaga jira waa wadanadooda inta dagaalku ka socdo bale lagaba yaabo dagaal tawxiidi inuu ka socdo waa wadanadooda inta dibudhacu ka socdo waa wadanadooda inta dulmigu ka jiro waa u badan yihiin dunida kalena waxba ka jira waa wadanadooda inta ugu badanee bini aadamba lagu dilaa waqtigaan aynu hadda joogno mashaakil aad u tiro badan baa yaalla caalamulislaami oo dhan waa haddana way tawxiidsanayaane maxaa kasi ah waa kii aan naarta wada badbaadinayn buu u egiyay majmuucu tawxiidkeenu ama hadduu sax noqdo waxaan leenahay waa ariiqa lagu saxee ambiyadii hore oo dham ay ku saxday laakiin dadku inta badan tusaaluhu wax ku fahmaa haddaba aan saddex tusaale bixiyo mashaakilka caalamka ka jira ee iminka jooga ka kaale waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo kuwii mashaakilkaa saxay nebiyey ahaayeen makan bay ahayn bal aan isla aragno cahdigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku salliya nebiga mashaakil jiray si uu u saxay nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisi iyo qarniga labaatanaad nafsi lmashkila oo la isku daya in la saxo labadaasaynu tijaabinaynaa cahdigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam carabi waxaynu odhan karnaa waxa malaa mashaakil dunida ka jiro dhima waa ka jireen siiba jaziira alcarabiya dil iyo dhac iyo sakhro khamro maalan khamro soo qaadno khamradu waxay ka mid ahayd carabtu dee si hayru caadiyay u cabbi jireen kaljarka dhaqanka ku biirtay dhaqanka waxaad ka garanaysaa gabay carbeed oo gabayadii hore jaahiliyada ah inta badan inaanu jirin baa laga yaabaa ilaa iyo gabayga waxaa lagu furfurtaa af carabigaa saddex shay khamriga cabistiisa iyo dumarka la tumashadooda iyo faraska fuulistiisa saddexdaase haddaad akhrido gabayadii jaahiliyada carbeed mucallaqaadka iyo kuwa kan markaad akhrido saddexdaa shay waa iftitaaxyada gabayga carbeed wuxuu ahaa khamrigu si caadiya carabi waxay ka dhanto ay u cabto culamada badh baa waxay yidhaahdaan erayga taajir haddaad maqasho wuxuu ahaan jiray ninka ka bac mushtareeya un khamriga taajir kaloo la lacagi ma jirin ninkaa kaa iyo ribadaa ugu badnaan jiray marka khamriga si caadiya loo cabi jiray qur-aankii koowaad ee soo degaa ma odhanin war khamriga iska daaya lagama hadal waxa laga hadlun tawxiidka sanamka caabudistiisa in la joojiyo aakhira inay jirto janno inay jirto naari inay jirto ilaahay keligii in la rumeeyo rususha la raaco baabkaasaa laga hadlayay nebigu calayhi salaatu wasalaam baa baabtaas ugu bilaabay
khamrigana waa la cabayay yaa cabayay saxaabada cabaysay aayadii koowaad ee qur-aan soo degta maxaa la tilmaamay suuradan tattakiduuna minhu sakaran wa risqan xasana baa la tilmaamay waxaa la kala saaray risqa wanaagsan iyo canabka baa la yidhi waxaa ka dhigataan midhaha waxaad ka samaysataan baa la yidhi ku lagu sakhraamo iyo risiq fiican inaanu risiqa fiican ku jirin baa la tilmaamay laakiin lama odhanay waa mamnuuc haddana waxaa soo degay qur-aan la leeyahay wa ismuhumaa akbaru min nafcihima khamriga iyo maysarka iyo qamaarka dembigooda iyo ismigooda wuxuu ka badan yahay waxtarka ku jira haddana waxaa soo degay qur-aan xadidaya wakhtiga la cabayo laa taqrabu salaata wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluun khamrada ha cabina baa la yidhi salaada ha tukanina idinkoo maxay sakhraansa waxay noqotay khamriga in la cabo un dee markaa habeenkii marka cishaa la tukado wixii ka dambeeya si saaka aroorta aad u kacdo adigoo miiraabay oo kala miidhmay aad salaada u tukan karto ila salaadii kale waa isku dhadhow yihiin haddaad cabto waad weli khamrigu waa bannaan yahay sida loo cabayay aan tusaale idinka siiyey cali bn abi aalib ayaa wuxuu rabay inuu guursado ina nebi maxamed faatima nabiga calayhi salaatu wasalaam inantiisa faatima ahayd buu rabay inuu guursado laakiin waa la soo hijrooday adduun lama haysto markaa ninkan inuu aroostana wuu doonayaa xoolana ma haysto dagaalkii beder baa dhacay dagaalkii beder haniimadii la helay ayuu neef geela helay dabeetana wuxuu is yidhi neefkaa geela aad arooska ku dhigatid oo maalinta aad qashid laakiin wax kale ma haysto nin kale israaceen oo dabadda u baxeeno inay iska soo xaabaystaan xaaba iyo waxa idkhiriye inta waxa soo guraan inay suuqa ka iibiyaan oo dabeetana waxoogaaga uga soo baxe kale uu ku aroos dhigto wixii markuu soo gurgurtay ayuu yimi intii uu ku maqnaa waxa ayaa saxaaba khamri cabtay khamrigii la cabay meesha ragga cabaya fadhiya waxaa ka mid ah xamse nabi maxamed adeerkii xamza sakhraamay iyadoo meesha la sakhraansan yahay ayay habla heeseen dabeetana waxay ku heeseen kuruskii iyo beerka ma isu kaaya saartaan xamza oo sakhraansan baa kacay dabeetana hashii caliyo halkan joogta buu birta mariyey hablihii baa kuruskii iyo beerka la isu saaray waxaa yimi cali bn abi aalib war hashaydii maxaa ku dhacay waxaa la yidhi adeerkaabaa birta mariyey nebigu u tegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo balkaala idinkii xamsaha uu hashaydii ku sameeyey waa la isa soo raaco hashii baa la arkay siday u eg tahay dabeetana waa la dhaafay meeshii ay bahalka ku cabayeen bay tageen iyagoo sakhraansan markay meeshii u soo galeen xamse cagahoodu eega dabeetana ishuu kor u raaciyeen ilaa madaxooda waa cali iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu yidhi wahal antum ilaa min cabiidi abi idinkuna miyatiin addoomihii aabbahay mooyaane ma wax kala ahaydeen waa nin sakhraansan oo iskaga tageen sidaasaa loo cabayay khamriga iyadoo sidaasaa waxaa soo degay qur'aan le maxay inama alkhamru walmaysiru walansaabu walazlaamu rijsun min camali shaytaan la soo ilaahay leeya maxay fajtanibuu ka dheeraada baa la yidhi waa wakti ma waa 15 sannadood kadib 15 sannadood baa tawxiidkuna joogay khamraduna maxay fasaxay oo la cabayay 15 sannadood kadib baa waxaa soo degtay khamrigu waa mamnuuce maxay ka dheeraada maxay sameeyeen saxaabadii markaa waxay yidhaahdaan xadiista barkooda waxay leeyihiin saxaaba wuxuu leeyahay anigoo ugu shushubaya oo beegaga ay gacanta ku haystaan ayaa dhawaqu yeedhay la leeyahay khamra waxa soo degay quraan le maxay khamradu waa mamnuuc way qubeen waa la wada sayday wixii guriga yaalo dhan baa la daadiyay magaaladii madiina togol khamriya furmay baa la yiraahdaa magaaladii oo dhan ba khamrigu dareeray rag baa u yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaa qadiyadani waxay ahayd
nusuusta ha ka soo waranto laakiin weli si shacbiya loo isticmaalay waxay dhahay ilaahay rasuulkiisiyo baalka dee waa laga baac mushtarinay xoolo agoomeed baa ku jira aanu cadaynay baa la yidhi ila waa agoon iyo xoolaheed waad garanaysaa nabigu wuxuu ku quba ma waa kuwii agoonta quba buu nabigu yidhi dabeetana waa la quba qolo kale u timo waxay dhahdeen ilaahay rasuulkiisiyo dee anagu dawooyinkaan walaaqnaa waxoogaa dawooyinaanu samaynaa marka haddee dawooyinka qaar baan looga maarmino waxoogaa baanu ku darnaa ee intaa noo fasax isagaaba xanuuna buu nabigu yidhi isagaa daa ah ee dawo maaha qolo kale u timo waxay dhahdeen ilaahay rasuulkiisiyo anagu dhul qaboobaa baanu degannahayo dee shaqada lama qaban kare waa isku yaro diirinaa waa ku yaro dhufannaa si aanu u kulayshanno isagaa jooji wax sababoo kastoo ay sheegaan wuu diiday nebigu masalada khamriga wax kasta oo la sheego wuu diiday bale wuxuu tilmaamay 10 baa malcuunina buu yidhi ka walaaqa ka qaada ka sida ka iibiya ka caba ka qayb wuxuu dhami waa malcuun buu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam khamradii way istaagtay hadda askar lama dirin oo guryaha lama baadhin oo boolis meelaha lama dhigin magaalada in khamri soo galiyeen aan soo galin mujarrad waxa soo dagay maxay khamrigu waa xun yahay ka dheeraada baa soo degtay dabeetana waa laga dheeraado idan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu bulshada dhibtii haysatay wuxuu ka bilaabay khamra jirtay zina jirtay boob baa jiray dhac baa jiray kan baa jiray halkaa lagama bilaabin waxa laga bilaabay war ilaahay rumeeyo cibaadaysto rabbi ku xidhma baa laga bilaabay markay dadku qumanaadeenna waxa loo sheegay ahkaamtii sharciga ahayd kaana daaya kaana joojiya kaa yeela dabeetana noloshii mustaqiim bay noqotay nabigu shurta iyo booliis iyo maxkamada dadka soo xidhxidha uma samaynin noloshii saasay ku hagaagtay yacni mushkila ijtimaaciya ayuu nabigu xallilay oo ah ka mida mashaakilka bini aadamka ugu adag aan qarniga 20aad nimaadna haddaba waddanka dunida ugu dhaqaalaha badan ee ugu cilmi badan cilmiga adduunyo ee ugu xoog badan ayaa go'aansaday inuu khamriga joojiyo waa waddanka Mareykan waddanka Mareykan culimadiisii sayniska waxay u arkeen khamrigu inuu poison yahay dabeetana waxa la yidhi khamriga hala joojiyo saynis yahanadoodii aqoon-yahankoodii wuxoodii oo dhan baa isku raacay waxa la yidhi maxaynu ka yeelnaa waxa la yidhi dadweynaha aftiha laga qaado kongresska labadiisa golayaasha guurtiga iyo maxaa la yidhaahdaa iyo kongreska labadaba hala mariyo madaxweyne kongreska saxeexay afti dadweynaha la qaado dadweynihii Mareykan wuxuu u batay khamrigu waa poison ahna laga joojiyo waa aqbaleen kongreska uu footeeyay waa aqbalay senatorska la geeyay waa u footeeyay waa aqbaleen dabeetana waxa la yidhi qadiyada tani waa inay noqotaa mas'alo constitutionka lagu daro federal government qaanuun soo saaro Mareykanku fatheriska ama qolada u yaqaaneen aabayaashii kawinay waddankan ay isu geeyay ayaa u dhigay distorka Mareykan markaa inta badan wax isbedbedela laguma sameeyo wax yar oo isbedelaaba ku dhaca waga waxay qaateen amendmentkii 18aad wax ka bedelkii 18aad baa la sameeyay dabeetana waxa laga dhigay qadiyad historia oo states ko dhami ay ku wada qasban yihiin inay fuliyaan stateku markaa xaq uma laha inuu ka hadlo golayaasha governorska iyo qoladaas waa federal loogu ku jira waa constitutional waa dasturi ummadda Mareykan waa isku raacday waxay yidhaahdeen 1 year chance ana waliba dadka hala siiyo waa 1919 kii marka qaanuunku soo baxay waxa la yidhi qaanuunku wuxuu hirgeli doonaa January 1920 ayuu qaanuunku hirgeli doonaa intaasi ninkii warshad lahaa warshadiisa wax kale ha u sii bedesho ninkii lacag kaga jirta kala soo baxo ha laga sii tabaabshaysto January 1920 markay gaadhay ba qaanuunkii la dabaqay waddanka Mareykan waxa la yidhi si dadku bahalkan xumaantiisa loo tuso ha lagu daro waxbarashada laga bilaabo dugsi hoose ilaa jaamacad curriculumka waxbarashada lagu daray khamriga iyo xumihiisa iyo dhibaatooyinkiisa in la dhigo
inanku markaa dugsi hoose markuu ku jiro waa loo dhigayaa dugsi dhexe dugsi sare ilaa jaamacad buu dhiganayaa khamriga iyo dhibtiisa dowladda Maraykan xooggeedii cilmigeedii aqoonteedii technology-geedii wixii oo dhan waxa la geliyay jaraa'idku inay ka warramaan aqoon-yahanadu ka warramaan qaanuun-yahanadu ka warramaan ee qolo kasta bulshada in la wacyi geliyo in khamriga la joojiyo 1920 buu sharcigu markaa hirgalay maxaa isbedelay dadkii khamrigii bay deyn waayeen balwadii waa sii socotay xadhigaa bilaabmay waa sii socotay waxaa bilaabmay meelo la yidhaahdo blind pigs alkhanasiir alcamyaa waa meelo suuq madoob oo lagu sameeyo khamrada waxaa bilaabmay awal khamradii hore dee waaba la eegi jiro nooc gaara bay ahaydee xataa tii khashabka ethyl iyo methylka labaduba inay soo baxaan dadkii wax indhabeela wax waasha wax ku dhinta wax sumooba wuxuuba way soo baxanayeen la khamro wax waliba ku jiraan waa socotay dowladdu xabsigay bilowday nus milyuun dadaa la xidho 500,000 people ayaa xabsiyada loo tallaabiyay ijraamaadkii dhacay Maraykan oo maxkamadii inay dil qofka binaadamka ku xidhaa yar tahay 200 qof baa la dilay oo ijraamka khamriga iyo wixii ku saabsan loo dilay 200 qof ay maxkamadda Maraykan dil ku qaadeen oo la laayay waa la waday laakiin dhowr iyo 10 sano kadib ayaa dowladda Maraykan dib u shirtay waxa la yidhi socon waa mamnuucistiya maxaynu sameynaa khamriga ma cilmi cusub baa ka soo baxo ammaan sheegaya maya khamrigu waa khamrigii sidii buu poison u yihi aqoon-yahanadu waxay leeyihiin aqoontu way sii korodhay tilmaamaysa xumaha khamriga ee may soo naaqusmin laakiin 1933 ayaa dib loo qaatay go'aankii wax laga bedelo oo maxay la sameeyo waxa la yidhi mamnuucistii way fashishay mushkiladii aynu rabnay inaynu daweynaana way ka sii badatay xalku waa maxay aan iska ogolaana bay yidhaahdeen dabeetana dowladdii Maraykan ee sare federal governmentkii waxay qaadatay dadka badh inuu weli mamnuuc ka yahay haddii khamrigu cabay intaasoo miligram uu dhiiggiisu gaadhayo khamrada laga helaa darawallada iyo kanadoo sakhraansan gaadhi marka xigta dhowr xaboo caynkaasaa federalku la hadhay intii kalena stateska waxa la yidhi idinku go'aanka gaadha state walba adigu waxaad aragto ka yeel ama qadiyadii distoriga ahayd ee amendmentka lagu sameeyey waxay noqotay inay fashishay 1933 wixii ka dambeeyay khamrigii dib loo fasaxay waa dhowr iyo 10 sannadood su'aashan idin weydiinaya waxa weeyaan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhowr iyo 10 sano ku joojiyay khamri dhowr iyo 10 sano gudahood ayuu bulsho khamriye caba waan aqoon maadiya lahayn waan jaamacada u furayn waan dhaqaale haysanin oo tijaaranaysay oo aqoonta meesha taala marka la eego khamriga u arkay inuu caafimaadka wax ka taro u arkay inuu qabowga wax ka taro u arkayay geesinimo inuu keeno u arkayay gabayadood iyo waxoodeena ku jiro mentality-gii yaalay uu nooca yahay ayuu daweeyay dabeetana bulshadaas mar qura ka baxday khamri cabki waan ku guuleystay طريق مرينا ومحي ما هم ممنوعست كما هرينا وحكو هريه محي وحكا بدل كمانك يا عقلك قفك بني ادم كا iyo maxay qalbigiisa iyo wuxuu rumaysay mamnuuc dhabta ah waa wuxuu qofku naftiisa ka mamnuuco mamnuuc ma qaanuunka waxaad iska eegto ay yiraahdaan wadanada kibray wadan kamida ayaa 2 saacadood leyd baxtiyay magaalooyinka ugu waaweyn dunida magaalo kamida ayaa leyd ku damay dabeetana dadkii boob bay u dhaqaaqeen dukaamadii iyo warehouseski iyo meelihii baa lagu qaaday leydkii wuxuu baxay baa la yiraahdaa iyadoo injineerka TV-ga sita iyo tabiibka la ordayay malaynayay dadka qaanuunka iyo booliiska ba kala celinayay aqaaidi ما يعلنني إذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي مركو مشاكل كحلله مشاكلات أمضها وحو قبل أبي توحيدكم مركو الصحمه أي النبي ولما وحو كلاك هذه مشكلة دي ومداهي ستي مثلا نبي الله موسى ومدن الحرية وكهضل رب إسرائيل بحرية نبي الله شعيب
قضية الاقتصاد بدأ بكها لي نبي الله لوط قضية دي حماه السبعين أيام بدأ بكها لي أخلاق رجعها أنبياء نبتي ويك هذا الشيء لكن وحكه الرجال لجهد لي محي توحيد كي إيمان كإن لبسه إيمانكم مركو بسمي مركا waxay noqotay sida ugu fudud inay bulshada wax looga bedeli karo ama dawladii cilmiga lahayd ee lacagta lahayd ee booliskii qaanuunka haysatay ee xoog tijaabisay khamriga way joojin kari weeyay booliska ninkii haystaa wuxuu qoray maqaal kaga waramayo khamriga ma cilmi cusub baa laga helo ma waxba soo kordhay ma yabuleeyay waa fashil ka u bay tilmaamis mamnuucistu inay fashil noqotay haddana waxay leenahay Europe iyo North America khamrada way mamnuuceen way iska sii daayeen waqtiyada badan baa la iska cabaa laakiin daroogada la yidhi waa mamnuuca hadda trendkii aba socda daroogadana in loo taaglaayay waana fasaxi doonaa iminka gobolada qaarkood waa la fasaxay teeda fudud baa la fasaxay taa la isku daweeyaaba la fasaxay ta private-ka loo isticmaaliyo qofku gurigiisa ku sabaysanayaaba la fasaxay wadannada qaarkood step by step way soo socotaa waqti dhow baad arki doontaa iyadoo mariwaanada iyo wuxuu dhamay ay fasax yihiin la odhan doono intaa ka badan ma cabi kartid iyo intaasaad cabi kartaado waayo xal looma hayo bini aadamka qasab baan wax kugu marsiinaya iyadu ma socoto qasab baan wax kugu marsiinaya ma socoto haddaba waxaan leenahay mashaakilka bini aadamka waa lagu xalilaa waxa laga yaabaa inaad tidhaahdaan labada casri baa kala nooc aha oo labada casri keebay aqoontu badantay keebaa dhaqaaluhu badan yahay keebaa jaamacaadku badan yahay keebaa iclaamku badan yahay keebaa mentalka maskaxda bini aadamka in manipulation lagu sameeyo ra'yul caam in la kawino iminka ra'yul caamku waa wax la sameeyo keebuu fudud yahay waxay ahayd in la yidhaahdaa casrigan baa waxaasoo dhammi fududaayeen casriga horey waxaasoo dhammi adkaayeen laakiin tusaale yaro saddexaad oo koobanaa tilmaamo casriga kan waxaa jira waddanka maraykanka dad madow baa degan ninka cadi dad qorayada qaarkood ay ku tilmaamaan 100 milyan ku dhadhow afrikada madow baa la raray sida xoolaha loo raray dadka la raray inta ugu badan muslim bay ahaayeen inta la raray ayaa galbeedka la geeyay sayladaha waaweyn ee dunida ku kala iibsadeen intoodii ugu badnayd ilaa sida haragga loo rari jiray dhexday ku sii waqti jiray kuwa xoogan uma xagga sare ka daadegi jiray kuwa xagga ka daadega waa la tumay qoladan maanta xuquuqul insaanka inoo sheegatay waxa kale xad bay gaadhsiisay ninka madow qoraalku dambi maxkamadda lagu taagay waxba uu qoraa hadii la yiraahdo maxkamadda la taagi jiray qof bin aadam wala leeyahay waxba uu qoraa dambi ku ah waa muslimiinta si loo ilowsiiyo waxay aqoon lahaayeen oo dhan waxba uu qoraa hebel dambi bay ahay dadka waa la gumaaday qaarkood 1905 baan filayaa inay ahayd maxaa la yidhaahdaa New York Museum-ka ku yaala dadkay Kongo ka qaadeen Kongo waxa degan dadka bigmiska qayb ka mid ah dadkan gaagaabanaya gobollada qabaa'il baa degan inta qaar halka ka qaadeen bay yiraahdeen waa qofkii daayeerka ka yimid aan wali soo gaadhin museum-ka lagu daawanayo qof bini aadam meel ku jira oo yaro gaaban oo la leeyahay waa daayeer soo koraya buu haayo hadda si soo bedelay waxay doonaan ma sheegi jireen anyhow dadkii sida loo galay ee la tumay akhiran waxa la yidhi xorbaati laakiin noloshay ka baxeen nolosha gebigeedba waa laga saaray iyana markii dambe waxay noqdeen mujrimiinta dunida ugu ijraan badan gangis dad wax dila oo khamri cabba oo wax booba oo problem un ah hal xoreeyo laakiin waxay noloshii kale bay baabi'iyeen dabeetana dawladda Mareykan jeelal baa laga buuxiyay lagu guray jeelkii waxba bedeli waa markuu soo baxaabo shaqada halkii ka bilaabaya jeelasha laftoodii baa meel amniyo dadku ku noolaado noqon waaye oo la isku dilaya oo la isku kufsanaya wax kasta la sameeyo dabeetana dawladdu waxay isku dayday dadka markii dambe problemkoodii markay u taag weyday inay salaaxiso
war dadkan aan dadka ka dhigna baa la yidhi projects bay dowladdu bixisay jaamacadaa la siiyey diimaha la siiyey cid walba waa lagu dayay jaamacada ayaa waxa la yidhi waxaa cilmi baadhis ku samaysaa dadkan nidaamkooda ijtimaaciga sociologigooda psychologigooda kan daraasaha lagu sameeyo dadka kan bini aadamka lagu soo daro mashaariic badan baa lagu qaatay sakan ha la siiyo dhul ha loo dhiso iskuul ha loo furo waxbarasho ha loo sameeyo jeelasha rehabilitation dib ha loogu sameeyo wax allaaliya wixii la tijaabiyo dhamma way fashileen way shaqayn waayeen gaangiskii qaar ka mid baaba islaamay gaangiskii qaar ka mid ayaa islaamay dabeetana islaamnimadii bay kula noqdeen xabsigii gaangiskii weynaa bay wax ka bedeleen waxaa soo baxay dadkii ugu khatarsanaa oo ugu musaalimsan niman weysaysanayoo iska tukanayo cidna dhibaado waa kuwii duriduba qaaqda ka taagay ayaa markay weysada barteen balaayadaba ka baxay tawxiidkaa bedelay nimankaa taariikh badan bay leeyihiin oo baabkaa ku saabsan laakiin in kooban aan idiin tilmaamo nin baa jira soomaaliyeed oo jaamacadka maraykanka ka baxay waa PhD holder researcher buu jaamacad ka ahaa qaybta beeraha iyo waxaasuu ka ahaa jaridada weyn ee maraykankan filaya ee cilmiga beeraha editorska toddobada ee buu ka mid ahaa baan rajaynayaa dabeetana maalintiisa sabtida iyo axadda ayuu jeel u dhow iska wacdiyi jiray jeel jaamacadda u dhow meeshaa jeelka waxaa ku jira juvenile maraykanku markuu dadkan madow loo taag waayey maca kuwa yaryar baa la xidhaa jeelal baa jira juvenileka lagu xidho 15 jir 16 jiro kuwa aan 18 gaadhin ee qaanuunku qabanaynin jeelal gaar oo lagu xidhaa jira jeelku waa soo tagay uu iska wacdi badh baa islaamay kuwii raay islaamay baa noqday dad fiican qoladii jeelku waxay yidhaahdeen war ninkani dadkan waxbuu ka bedelay bal war wacdiga noo badi bay leeyihiin kaalayo meesha si fiican wacdi ninkan researcherka PhD holderka Soomaaliyeed waa Soomaaliya markii dambe state-ka New York baa waxay yidhaahdeen ninka kani waxbuu ka bedeli karayaa noloshan jeelashiga gaangiska kan marka waxa loo soo bandhigay shaqo ah shaqada jaamacadda inuu ka tago state-ka inuu u shaqeeyo waa cid jeel inuu noqdo lacagtaana lacag ka fiican ma u dhigantay in la siinayo inkii Soomaaliyeed uu joojiyay shaqadii jaamacadda hadda 20 sano u dambeeyay ma filaya oo 9 baa la kulmay bari dhawayna argaysan ku kulanay 20 sanadood uu hadda ka yahay baan filayaa waa cid jeel u yahay waxa loo qaatay isbedelku ka sameeyay maxay xabsiga dadka ku jira idan waxaan leenahay nolosha maanta joogta ee dawladda Mareykan cilmigeedii aqoonteedii lacagteedii intay ku bixisay ay u taag weyday ee nooc kasta ay u adeegsato bini aadam loo adeegsan karo oo isbedel ka sameyn kari weyday ayaa waxa isbedel ka sameeyay maxay nin la ilaaha illa allah sheegay xataa aanu takhasuskiisa ahayn takhasuskiisu cilmiga beeraha laakiin tawxiid sheegaya oo la ilaaha illa allah dadka u sheegaya oo diin baraya ayaa isbedel ka sameeyay gaangis aan jaamacadba soo galin meelahan waa akhridaan baan filayaa Malcolm X la odhan jiray Malcolm X muxuu ahaa waa gaangiskii waaweynaa ka mid ah isbedelka intuu sameeyay ummaddan wax ka bedelay bal kacdoonadu sameeyay daraadeed loo dilay waxay leenahay marka haddaad rabto inaad inxiraaf gunta ka Soomaalidu waxay yiraahdaan milal dushii lama dhayo haddaad milalka nabarka xagga sare oo buqbuqa yar haddaad dhaydhaydo intuu yara bogsada oo hadana hadhow maxay dib soo dilaacaya waa inaad meesha gunta ka soo nadiifisaa isbedelka islaamku rabaa waa maxay waa inuu nolosha gunta ka nadiifiyo haddii gunta laga soo nadiifiyo waxa kaloo dhanna isbedelka waa lagu samayn karayaa isbedelka lagu sameynayna isbedel fudud buu ahaanaya sida daraadeed ba quraanku wuxuu inoo tilmaamaya waxa laaliya taariikhda bini aadamka inxiraafaadkii soo dhacay in la lahaa kow laga bilaabay ubudullaha ma lakum min ilahin ghayr hatta carruur baynu u taaglaanay Soomaa quraanku wuxuu tilmaamaya nin la yiraahdo Luqman al-Hakim ilaahay wuxuu quraanku ku sheegay ninka xikmad la siiyay حكيم منها
ninka xikmadda la siiyey quraanku xikmadiisii oo dhan wuxuu inooga soo naqliyay ilma uu dhalay sidoo ula dhaqmay ilma uu dhalay sidoo ula dhaqmay ilmaha uu dhalay markuu wuxuu sheegayay xaguu uga bilaabay وإذ قال لقمان لابنه وهو يعده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وحوق بلابي يا بني ورويل يرهيو لا تشرك بالله قضية التوحيد إلهي هو الشريك يالي مركاسو وحو السببي سببت أن لو شريك يالي وحيتي إن الشرك لظلم عظيم عدالة لقاله إلهي الله عدالة سمايابا وفيها قد حقي سوق افتضي ظلم اللي قالنا إلهي الظلم دابا وفالحن وأين ذو شريك ياش إلهك وأبوريك وأرزاقك كون كان له إن ترى ضعت كلا لا عابدية ولو نفط هذا نها النقطة هو هذا نها النقطة سدرات ذا يهال حبة وحين لنا لا إله إلا الله مهمة دا إلهي وحويا دتكن وحلقيا بين وفهم سيين آخرة إنه وحتر كطي ها نبويا تاس آخرة وحتر بيكت لكن وحكى الله إنه وحي وحتر كطهي دنيا نيجوجنا دنيا نيجوجنا وحتر كطهي وحي لنا وحي وحتر كطهي وينوب بهالنهي أقويها كينو وحدونا تخصص كاجا علمي هذا أقويها كوينو فهمه meesha problemku asalka waa laga bilaabay inay halkan tahay waxa kale aad samayso dhami waa dabdamis yani mashaakilku iska tira baday malihin mashaakilka ayaan laga hadlin ama ayaan wax laga qabanin laakiin waxaad rumaysantay mashaakilka kale aad qabanayso dhami waa dabdamis barorta dabkan si baqti kana si baqti laakiin wayna gunta ka toshaa Soomaaliya waxay tiraahdaa haani gunbay ka tolantaa أنت قلت يرى وصابرك ورا طلا كدب كر الله سعداء يساتن لا طلا إنسانكم قلبي سي عقلي سوى حق له كطلبه هرمك بني آدمك وح عقلي بني آدمك قالوا كبل عمه اسبدل كستوب بني آدمك كودعه يسوى كبل عمه دبدك ما بل عمه اسبدل كستوب بني آدم كودعه يسوى كبل عمه waxay leenahay isbedel bini aadam lagu sameeyana waxa ugu weyn isbedelka uu soo diray ilaaha og bashar kare isagoo abuuray ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ilaahay ma wuxuu rabaa nolosha adduun intaynu ku kadeedana inaynu aakhira jannada galno maya diintani waxay u soo degtay noloshan aynu joogno inay islaaxiso tadambana inay islaaxiso adduunka inaynu liibaano aakhirana inaynu liibaano توحيدك وحتى كو إن النفط هذا مطمئن نقطه ألا بذكر الله تطمئن القلوب يريد ما أنت يكون والله عفلا يا ودنا قار كود حبضوا أنت يدشوا حكبدا أنت يجوز له ودنا بدن دجال الله ضدك كجد تورنا وحكبدا أنت يسكدشه inta istishaa markay tira badatay dunida wadanada waaweyn qaar badan oo kamid ah laguma qoro jaraa'idka page-ka dambe ee tacsida jaraa'idada reer galbeedku inta badan page-ka dambe oo dhan oo page tira badan baa waxa ku qoran tacsida dadka dhintay oo la tacsiyeynayo kuwaas waa mamnuuc laguma daro waayo waa problem la rabo in la aaso oo aan la rabin dadku inuu ogaado yaa isdila dan yartu isbedisho طبقات الصراع وجوبا هي مدى الكلاسك تدك استيلاء القلبات كوحة وجوبا تدك هنتيدنا لا لعكتنا له مدى الكلاسك هي إنجنير رضا الطباء السياسيين تدك وويد تدك واحد كوا صاوي ترى بدل تدك كادحين تهيا وشيلك الرادينية شيل الرادس كابا نفتك كبحضر مركا انت بدن يجو بروبلم كا استيل كما سو غانا تدك وجوبا استيلاء وددك نولشن wax ku haystay حلنا الله ما هيو ما هو ملايين الدولة قاركود إن مركي مشكلة حل وايين يا برلمان كود الشرعي تبتنا وحيد هذا سي حل الله وهلا بلا نقال الدراسة هلا قصة بيضتكم عيش الدلاه سي الدراسة الله قصة مايو إلا قف يجري سيم بيسكو عيشنا يا لوجان مايو دولة ده حسب يسميه اللي يسكو دلو ده بتنا دتكم مركي يمادان انترفيو هلا قاعد
oo foomam ha laga buuxiyo qofka maxaad isu dilaysaa maxaad u dhimanaysaa waa ka kadibna ha lagu caawiyo sida u fudud ee la isu dilo taasoo qaab baa la isu dili karaa dad ka marto waa dhimanaysaa waa dawladaha waa dawlad ka mid ah way u samaysay si cilmi baadhis loo sameeyo ayaa dawladdu meesha tan u furtay dadka isdilaya meesha yimaada sababtu isu dilaya wixii baa laga qoraya problemku dareemayo waa kan iyo wuxuu xal u arko waa la isku dayaa haddii la qancin kara in la qanciyo laakiin waddankiiba kuyubu meeshii u galay dawladdii dabeetana amar bay soo saartay war la xidho dadkan wixii dhimanaya iska dhintaan yacni mushkiladaan xal loo hayn maysan idan dunida maanta mushkilaad baa jira أن تيفيكو كهذل أو جرائدكو كهذل أو وحري كهذل أو مشاكل حقيقية بالشدة الدون كهاي ستا أو علم البارسية دي اللي سبي حل إلهي واحد هذا عالم الإسلامي بقى وغير دتك يستلم مع مشاكل في صورة مع كل المشاكل كثيرة قفوا ينسقوا نفط إسكاك هذا وضدك وقلت رضا ين وحين لأن هاي توحيدك يا إيمانك نرشن نبتدو حلوية هاي nolosha dhibteedoo dhan buu xal u yahay waxaan leenahay waa fure u baahan hadduu rogmo ardiyada kale markaa way fududay dadka in socially politically economically waxaa doonta sheeg isbedel kastoo kaloo lagu sameeyaa si fudud baad markaa ugu samayn karaysaa si fudud ayaad u samayn karaysaa hadduu se asalkaasi dunsan yahay waa wax tiro badan leh marka darsigayga caawa wuxuu ku saabsan yahay وردون كان كديت كيس نبي الله يونس مركو قدك مركو بحلقه اللقاء بدا هوست هذا قال محكو دواقي فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين إلهي محيولي مركا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين بإلهي وكأقبل لي بإلهي فريدي لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين حنا إلهي وكذلك ننجي المؤمنين ساسنو بدبادنا ددك مؤمنين تا بل النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حين لي وهداي دبتو إذن كبضتو أتكاتو دعاء الصحيحين كصار ارتيب النبي يقول يا أخريا أهم حي لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم والدعاء آخر استبو النبي يقول قضية التوحيد يعني مشاكل كستوين هستوحى اللي نقول علينا يا إنه محي توحيد كدرين وفي مركو التوحيد سدو وحما ممنوع نقضى محي بيجيس يا مال كيس يا محي هي شرفتي دي سبا إنك استو صومالي ده يا غار بدر مسلم كمان تكمدي سقول لا إله إلا الله لا داعي سقول سجود يا كوكا قصيا أنا لا هدو قف التوحيد سدو وحما ممنوع نقضى محي إذن أيها الأحبة فاهمت القرآن يا حديث بيضا بدن بيكوت الله أنا وحان ربعة وين ندين شيء وكلمة أقولها وحويان وحي بروبلم تاريخي القرآن كينو قور ربي الدنيا الصامري إلهي وحيلي وحا كبل ودان أنبياء دي الله صدري هلكا كبل هذا ده بيتر مشاكل كواسحة كريسة وحين لا نمركها إننا مشاكل كينا هنا هستا وحضورها كصاف سنادو مشاكل كينا هنا هستا مشاكل بدن بينا هستا مد قبيلة هنا هستا مد نقالة هنا هستا مد سياسات بينا هستا مد بلشيات بينا هستا مشاكل تربضن أيها هنا هستا ولما أنت الدراسة دي علم بارس إيو أقونوا باهن لكن وحين لأنه يسبدل كأنه كربنا وإنه بيس هذا توحيد كيدت كإن دين تلو سعليه سو قالوا وحين لأنه ضدك الربينة وحي صلاحية أقوميها هذا سياسيينها هذا عدة دونانها هذا ورهلك كبل هذا وحفظ ضانية قول كينين هو قاعدة وحنا حتى هدو تشرو إفتول هدي تشرتو ودوين بدنا وحلو الصحة تنوا وددا وقابا بالله هدا بيتشرتو حتى ودوين بدن ومشاكلات كثيرة وحلقة الصحة كريت الدورة هلا كذا تنوا وددا وقابا وايو ووددي كنتي dadkii dunida ugu aqoon yaraa meeshii ugu abaarsanay deganaa ugu dhib badnaa inta dawlad aan lahayn taariikh dawladeednimo aan lahayn taariikh falsafi iyo cilmi aan lahayn saxaraha carbeed ku noolaa inta la bedelo
inay waqti aan 50 sano gaadhaynin xadaarada ugu weyn dunida ay ka dhisaan saxaabadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dabeetana alxadaara alislaamiya la sheegaa waa bayska u rasmiga ay ku dhisnayd wax kastoo ay soo saarto dambe 1000 sannadood bay dawla luula dunida ka ahaayeen laakiin 1000 sannadood waxa la wado dhami baysku ku dhismay ee xadaarada tan dhisay waa tay saxaabadu u dhigeen hadday bini'aadamnimatay hadday dhaqantay hadday diintay hadday akhlaaqtay hadday xataa qaab loo dagaalamatay dagaal akhlaaq ku salaysan bay keeneen xataa idan waxaan leenahay Soomaali maanta xornimo waxay sheeganaysaa maxay de 70 sano malaa waxa ka dhima wax yar saxanka ma 70 sanadood 70 sanadood kadib nabi maxamed dunida muslimku halkay maraysa inana 70 sanadood intaynu wadnay ayaynu nidhi berigii koowaad dimuqraadiyadaynu tijaabinaynaa walaasaynu nidhi wartan waa lagu goblamay waxba laguma hayo waayo 1968 iyo 69 foodkii ugu dambeeyey waxay yidhahdaan Soomaalidu 82 xisbi bay ku gashay doorashada reer walba xisbi yar oo hoos u lahaa haddana 82 markay xamar isugu tageen 122 hal xisbay ku beeraan nin qura mucaarad lahaayeen cabdirasaaq qura mucaarad ahaa inta kalena SYL bay ku gashay waa lagu soo baxayay mabaadii ma jirin markii dambena waxa la yidhi xisbiga dawladda lacagta haya xagga la wada gala waa la soo wado waxa la yidhi kaasi socon waa inqilaab baa dhacay shuuciyad baynu qaadanay muddo la waday waxaynu dhitarineynaa fiic weydi oo maxayna anfacaya jabhado waa jabhadayni wixii horeba waa burburin waxba wala dhisay oo maxayna anfacaya reero wada sultaan baynu sameeyno reer baynu dabada gelinay maca aqoonyahanku reer buu dabada geliyay qabiil baynu ku wadnay waxa laan ka yeedhay wadanka dhan baynu sameeynay waxba ina fiic waaye waxba ma hayno يعني قبائل تجابني او ديمقراطيه تجابني او شيوعيه تجابني او جبهدنimo تجابني او dhulgoosinimo تجابني او gobol yar yar eegnay waxba isbedel ma jiro idan waxa leenahay war wali gawaan baynu wali qodaynaa hadaynu rabnaa inuu isbedel dhaba sameeyno 70 ka sanadood dunida baynu qayb qaban lahayn maaha xoog baynu ku qaban lahayn aqoon baynu ku qaban lahayn dunida isbedel ka sameyn karnaa 70 years waa waqti dad ay xad gaadhaan 70 years waa waqti saddex jiil ugu yaraan ay isbedeli karaan laakiin maxaa inaga qurama caalamka islaami sidii loo gumaystay aqliga gumaysiga wali shaqeynaya aqliga gumaysiga caalamka islaami jooga marna xagga shuuciyadu buu cararay marna xagga dimuqraadiyadu buu cararay marna xagga reernimadu buu soo noqonay inta uu ba caalamka islaami oo dhami waday walina ay wadaan dadka badba waxay oranayaan cadawga ina helayo cadawga ina waligeed dunida cadaw waa jooga ka warraadaad tiraahdo kubad baan ciyaarina oo tiimamka baan rabnaa in la baratano oo laga soo badiyo maalin walba tiraahdo tiimamkaas xarfaane marno baneeya anaguna goolasha dhalinay aqliga cadawga ka warramo saasoo kale teemashu waa lucba dunida ay ciyaaraysan waliba maslaxadiisu wati ma adigu waxaad sugaysaa inta lagu baneeyo inaad goolka soo dhaliso that's nonsense weeyaan waa waxaan jirin teamkaaga intaad dhisato waa inaad isku daydaa maxay inaad goolkana ka dhalin karto adna aan lagaa dhalanin that's aqliga rasmiga waa ka inaad adigu difaacaaga xoojiso aan ku marin cadawga hujumkaaga aad xoojiso adigu aad gool dhaliso laakiin qolada kale maxay u xoog badnaatay war ma hadda war ma idan cadow baa ina haysta iyo gaala ina ku tiro badatay waa la isugu keenayay waxaas war ma carruurta iyo dumarka lagu sheekeeyaa waxaas war ma warka dhabtahay waxa weeyaan haddaynu inagu isbedel rabnana dunidu waligeed bay loolanka ku jiray halkaynu joogno ka hooseeya ayaa dunidu soo martay ka hooseeya soo martay laakiin rag baa u halgamo ka soo saaray groupkiina caawa hor fadhiya deenin cirale laba qof baan arkaa baan u malaynayaa intiina kale madaxiin waa madow idan idinka dadkii isbedelkana abuuri lahaa sameyn lahaa laakiin waxaan leenahay yoolku yooyda ka qaldamay dhalinyaradu inta badan gabgabta ku badan iyagana oo markaad afar buug akhridaba dhanbaad u carartaa gabgabta inta daysaan dunidu taariikh bay leedahay taariikhda daraaseeya oo meeshii ilaahay iyo rasuulkiisu wax ka saxeen meel ka fiican soo helay maysidee go that way
waxbaynu saxi karaynaa وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله